xarunta dhexe ee taksiyada magaalada Oslo ee caasimadda dalka Norway ayaa waxa uu dagaal ku dhex maray laba tagsiilayaal ah kuwa oo ku dagaalamay mid ka mid ah rakaabkii ay doonayeen in ay qaataan. Labada tagsiile ayaa dagaalka iyo buuqa dhex maray kadib waxa uu midkood la soo baxay mindi oo uu uga hanjabay midkii kale. Booliska oo goobta looga yeeray ayaa soo gaaray halka uu shilkan iyo gacanka hadalkan ku dhex maray labadan tagsiile ee midkood mindida la soo baxay. Waxa uuna taliyaha howlgallada booliska magaalada Oslo Sven Christian uu ku waramayaa in ay goobta gaareen kadib markii lagu soo wargeliyay dagaalka dhex maraya labadan tagsiile ee midkood mindidu la soo baxay. Waxa uuna intaa ku daray taliyaha howlgallada booliska in mid ka mid ah uu ku hanjabay mindida, sidaa daraaddeedna waxa ay boolisku sheegeen in labada tagsiile midkood la xiray oo xabsiga loo taxaabay. Dagaalka ayaa la sheegay in uu ka dhashay kadib markii labadan tagsiile ay isku qabsadeen qof macaamiil ah oo uu doonaya mid walbaba inuu isagu qaado. Mid ka mid ah dadkii goobta ku sugnaa ayaa lagu soo waramayaa in isbitaalka loo qaaday kadib markii uu ku dhacay mid ka mid ah labada tagsiile ee ishandadaya isna dagaalayay, sidaana ay ku soo gaartay jug. Waxaana hadda lagu soo waramayaa in lagu dabiibayo isbitaalka, halka mid ka mid ah labadii tagsiile ee uu dagaalku dhex maray loo taxaabay xabsiga. Waxa uuna boolisku furay kiis ku saabsan arrintan. Halka ay wararka ugu doorkaraan idinkaga imaanayeen waa Somali Voice in Norway ama codka Soomaaliyeed ee Norway. Waxaana idinla socodsiinaya aniga oo ah Cabdullaahi Shiine.